قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هذا هوشيتنا هجو هجنوجو هذا هوشيتنا هجو ujeedadaynu maanta isugu nimi sidii ku cadayd casuumadii aanu idin soo dirnay waxa weeyaan inaynu falanqayno la fagurno tala ku darsanno hareeraha ka istaagno siyaasadda qaran ee qiimaynta iyo dabagalka oo hadda ku jirta hanaankii maxay ahayd aynu u mareynay dhamaystirkeeda iyo muxuu ahaa diyaarinteeda sidaynu la soconno marka siyaasad la diyaarinayo siyaasadda la diyaarinayo waxa laga maarmaan ah in lala tashado oo ay talo iyo maxay ahayd fakarba ku yeeshaan cidda hadhow toole fulinteeda ka mas'uul noqonaysa runtii waxay ka mid tahay in hawshan imika aynu maanta halkan u fadhinaa hawlaha udub dhexaadka u ah ama aasaaska u ah ama mucda ah inaynu ogaano la soconno dabagallo shaqada aynu qabanayno wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu iyo institutionska dawladdu dhammi qabanayaan bal inay sidii loogu talagalay shaqo ahaan iyo hawl ahaan u qabsoomeen waxaynu ku qiyaasno ku cabirro inuu isku saxno inay noqoto warbixinaha ka soo baxa marka buuggan halkan wasaaradda qorsheynta ay halkan isugu kan yeedhay annagoo isticmaalayna mashruucan uwal banku naga kabay dib u habeynta shaqaalaha aanu qayb ka ahayn waxa uu muhiim u yahay inaynu shaqooyinkeenu qaranka u haynaynu qabanayno ku sugno inay waafaqsan yihiin national development goalskii NDP2 waliba iyo inay waafaqsan yihiin istaraatiijiyadihii wasaaraduhu 5 sanadood ama ay qorsheeyeen ay ka soo dheegeen national development goalska NDP2ga iyo sidoo kale inay u cuntamayaan adeego tayadiisa iyo togonaantiisuba inay u cuntamayso adeegaynu doonayno qaranka inaynu qabanno iyo shaqada wasaaraduhu hayaan iyo hay'aduhuba waa qiimayn waa dabagal waa isla xisaabtan waxa weeye inaynu wax ka baranno waa afarta kalmadooda buugga ku yaala macnaha halka u sarreysa waa intaa waxa weeye inaynu qiimayno shaqooyinkeena dabagallo siyaasaddii lagu dhaqeeyay weeye waxaana filayaa guul weyn bay u tahay qaranka waana u mahad celinayaa runtii halwadeennada iyo mas'uuliyiinta wasaaradda qorsheynta la taliyaashii ka qayb qaatay hawshan oo runtii aan isleeyahay waa hanaan togan oo wanaagsan oo aynu ku sixi karayna mustaqbalka sanadaha soo socda inay noqoto in wax waliba noqdaan wax la yaqaano oo jaan go'an oo halka loo marayo iyo miisaaniyadda la qorsheeyay iyo hawlaha lagu qabanayo miisaaniyadda iyo wixii lagu dabagelay miisaaniyaddaas inay noo wada qorsheysan yihiin monitoring and evaluation policy hadii af Ingiriisi lagu sheego ama halkan waxa la dabagalka iyo qiimaynta halkan waxa ka dheer iyada learning and accountability jigno laba component lagu soo kordhiyay caadiga hayde conventional ka monitoring policy and evaluation ke jida monitoring and evaluation policy kullu waa iska fahmaysan waxa weyn in mashruuc wax kasta la sameeyo in la ogaado in yani deeqim in wixii oo qorsheey ay si sax ah ku socdaan marka ujeedadeedu waa taas waxa kale oo in lagu xisaabtamo wixii inay hirgalaan iyo accountability learning baa ku jira marka waa document complete aan isleenahay hase yeeshee waxa weeyaan dee maladii national policy ay noqonayso waa in la wada yeeshaa wixii oo dadkii fulinayay iyo dadkii lagu isticmaalayay kulli ay acceptance keenaan يعني ده هو وجده وين وحوين inputs كده لقتان أو ده critical أو evaluate كرسان سياسة دن سايد الاشر فرسون لقطه قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا